Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada casharkeennan oon kaga hadli doono cutubka 7. Cutubkan wuxuu ku saabsan yahay psychological disorders and treatment techniques. Isku dhaxyaacyada dhanka maskaxda iyo sidoo kale qaababka loo daaweeyo. Casharkan koowaad hadda wuxuu ku saabsan yahay psychological disorders maxay yihiin. Waxaa la yidhi we generally have waxaan haysanaa 3 main criteria. 3 sharti ayaan guud ahaan haysanaa baa la yidhi. oo ah waxyaabaha lagu garto muxuu ahaay disorderkan psychological disorders. ruuxan tusaale ahaan inuu isku dhaxyaac dhanka maskaxda qabo in kale waxyaabahana lagu kala gartaa. Kow shardiga koowaad waxa weeyaan waa abnormality, maladaptiveness oo kalabaada iyo sidoo kale personal distress. Abnormality maxay tahay? Waa abnormal behavior. Dabeecadda aan caadiga ahayn is waxa weeyaan behavior waa dabeecadda that deviates taasoo baa la yidhi ka leexata ama ka leexsan from the behavior of the typical person. Dabeecadda ruuxa caadiga ah. Sidoo kale waa mid ka leexsan the norm. Caadadii ay bulshadu iska leedahay. A society's norm caadada bulshadu can be qualitative and quantitative. Labadaba way noqon kartaa. Haddaba when someone behaves in culturally unacceptable ways, marka ruuxu u dhaqmo baa la yidhi qaab aan dhaqan ahaan la aqbalayn, and the behaviors he or she exhibit violates the norm, standards, rules and regulations. Dabeecadda uu soo bandhigay ruuxaasina sidoo kale baa la yidhi ay ku xadgudubto caadadii iyo xeerashii iyo muxuu ahaay sharciyadii ay iska lahayd bulshadu. This person shakhsigani is most likely to have a psychological problem. waxay u badan tahay baa la yidhi inuu dhibaato dhaga maskaxda ruuxaasi qabo. Only abnormal behavior laakiin keliya dabeecad muxuu aan caadi ahayn cannot be sufficient kuma filan karto for the diagnosis of psychological problem. Ruuxa baa la yidhi laga baaro ama la yidhaahdo wuxuu qabaa psychological problem kuma filo. Sidaa daraadeed we need waxaan u baahanay to consider inaan ku xisaabtano the context in which the person's behavior happens. Xaaladda uu ruuxaasi ay dabeecadaasi timaday waa inaan ku xisaabtano. oo hal waxay ka dhigan tahay abnormality-ga keliyihii kuma filo in ruuxan la yidhaahdo psychological disorder buu qabaa. Shardiga labaad waxa weeyaan maladaptiveness. Waxaa la yidhi maladaptive behavior is one way or another way creates a social, personal and occupational problem. Waxaa la yidhi iyaduna sidoo kale waxay abuurtaa dhibaatooyin dhanka bulshada iyo shakhsiga iyo shaqada la xidhiidha. On those who exhibit a behavior dabeecadaha noocana dadka soo bandhiga waxaa la yidhaha maladaptiveness la qabsi la'aan weeyaan waa bulshada iyo dadka wala dhexmay ruuxii la qabsan. This behavior is seriously disrupt the day-to-day activities of individuals. Waxaa la yidhi dabeecadaha noocani waxay si aad muxuu ahaay hakad u geliyaan shaqada maalinlaha ee shakhsiga. That can increase the problem more taasoo sii kordhin karta baa la yidhi dhibaatada. Personal distress iyaduna maxay tahay? Personal distress waxaa la yidhahdaa kurbo iyo salahan walaac ama walaac shakhsi oo ruuxa ayaa la yidhahdaa. Our objective feeling of anxiety, stress, tension and other unpleasant emotions determine whether we have a psychological disorder. waxaa la yidhi dareenadeena murugada iyo walaac iyo culays ku salaysan iyo sidoo kale dareenada aan fiicnayn oo dhani waxay go'aamiyaan baa la yidhi inaan psychological problem disorder isku dhaxyaac dhanka maskaxda inaan qabnay in kale. These negative emotional states waxaa la yidhi xaaladahan muxuu ahaay taban ee dhanka dareenkii muxuu ahaa arise waxay ka yimaadaan either by the problem itself or by events that happen on us. ama waxay ka yimaadaan baa la yidhi waxyaaba inagu dhacay. But laakiin the criterion of personal distress waxaa la yidhi shardigan ah ruuxu inuu muujiyo tusaale ahaan kurbo iyo tusaale ahaan raaxa la'aan shakhsiyadeed keliya baa la yidhi just like other criteria sida shuruudihii kale aan soo aragnay oo kale is not sufficient for the presence of psychological disorder. ruuxaas inuu psychological disorder ama isku dhaxyaac dhanka maskaxda inuu qabo keliya personal distress keliya kuma filo. This is because sababtoo ah tani waxaa weeye waa sababtoo ah some people like feeling distressed by their own behavior. dadka qaar baa dabeecad ahaan iska jecelba inay noqdaan dad xilli kasta iska kurbaysan oo yar murug oo xilli kasta ku yidhi. This is because of hence daraadeed behavior that's abnormal, maladaptive or personal distressing waxaa la yidhi dabeecaddu hadday noqoto abnormal sidoo kale maladaptive iyo personal distress oo saddexdan shardi baa isku darsato dabeecaddaas la yidhi ama indicate laga yaabaa inay tusiso that a person has a psychological disorder inuu ruuxaasi qabo isku dhaxyaac dhanka maskaxda. Causes of psychological disorders based on perspectives. waxaan arkaynaa baa sababaha keena isku dhaxyaacada dhanka maskaxda wali inoo ku salayna waliba aragtiyo based on perspectives oo aragti kasta waxay qabtaa wax gaar ah inuu keeno. aragtidan la yiraahdo koowaad ee the biological perspective waxaa la yidhi dhanka biologiga marka laga eego current researchers believe that cilmi-baarayaasha hadda waxay aaminsan yihiin that abnormalities in the working of chemicals in the brain waxaa la yidhi qaab aan caadi ahayn oo u shaqeeyaan baa la yidhi kimikooyinka dhanka maskaxda oo lagu magacaabo neurotransmitters may contribute to many psychological disorders. ayaa laga yaabaa inay qayb ka geystaan isku dhaxyaacyada dhanka maskaxeed oo muxuu ahaay
kimikooyinka maskaxda ku jira oo qaab abnormal u shaqeeya ayaa qayb ka noqon kara inay sababaan ama keeni kara psychological disorder. Tusaale ahaan, overactivity of the neurotransmitter dopamine. waxaa la yidhi neurotransmitterkan dopamine la yidhaahdo oo si xad dhaaf u shaqeeya, perhaps caused by an overabundance of certain dopamine receptors in the brain. laga yaabana inay sababtay baa la yidhi receptorskan dopaminku iska leeyahay oo aad u fara batay oo maskaxda has been linked to the bizarre symptoms of schizophrenia. waxaa la yidhi waxaa lala xidhiidhiyaa baa la yidhi calaamadaha naadirka ee uu iska leeyahay cudurkan isku dhexyaaca maskaxeed ee la yidhaahdo schizophrenia. Psychological perspective dhanka marka laga fiiriyana in the past xilliyadii tagay baa la yidhi in this part on qaybtan we will examine 3 psychological perspectives. waxaan eegi doonaa baa la yidhi 3 aragtiyood dhanka psychologiga marka laga fiiriyo: the psychoanalytic perspective, the learning, and the cognitive behavioral perspectives. 3 aragtiyood baan keenay. aragtida koowaad waxay leedahay psychoanalytic perspective. Sigmund Freud oo ah the founder of psychoanalytic approach, ninkii aragtidan soo daafuray, believed that wuxuu aaminsanaa the human mind consists of 3 interacting forces, in maskaxda bini'aadamka ay ka kooban tahay 3 xoog oo isdhexgalaya. 3 soo aragnay waa id-ga iyo ego iyo sidoo kale super ego. wuxuu yidhi abnormal behavior in Freud's view. aragtida Freud markaan u fiirna baa leeyahay dabeecadda abnormalka iska usib waxaa sababa baa leeyahay by the ego's inability to manage the conflict between the opposing demands of the id and the super ego. waxaa sababa uu leeyahay ego oo awood u weyday inay maareyso khilaafka u dhexeeya maxay dalabyada iska soo horjeeday ay sameynayaan id-ga iyo super ego. Learning perspective. Most mental and emotional disorders inta ugu badan muxuu ahaay isku dhexyaacyada dhanka maskaxda iyo dareenada in contrast si ka duwan baa leeyahay psychoanalytic perspective. aragtida psychoanalytic si ka duwan aragtidan waxay leedahay arise form, waxay kasoo afbaxaan ama ka yimaadaan inadequate or inappropriate learning, sidii loo baahnaa oo aynan dabeecad u baran. dabeecad oo sidii loo baahnaa ama si aanad si ku filan aad u baran waxay keeni kartaa wiil psychological disorder. People acquire abnormal behaviors. dadku waxaa la yidhi waxay kasbadaan ama yeeshaan dabeecado muxuu ahaay abnormal through the various kinds of learning. noocyada kala duwan ee barasho ay dabeecado abnormal ay dadku waxaa la yidhi ku bartaan. Cognitive perspective. waxay leedahay aragtidan whether we accept it or not, the quality of our internal dialogue waxaa la yidhi aqbalnaya ama diidnaya, laakiin tayada wada sheekaysiga gudaheena ka socdaay either builds ourselves up or tear ourselves down. waxaa la fahnagu dhisaa ama uu dumiyaa, and has profound effect on our mental health. sidoo kale saameyn cajiiba weyn ayuu ku leeyahay caafimaadka maskaxdeena. oo qaabka adu guud ahaan wada sheekaysiga maskaxda gudaha ka socdaay saameyn buu kugu leeyahay. The main theme of this perspective is that self-defeating thoughts. waxaa la yidhi muxuu ahaay wax mawduuca ugu muhiimsan ee aragtidan ka hadlaysa waxaa weeyaan aragtiyaha baa la yidhi self-defeating ee ruuxa jebinaya lead to the development of negative emotions ayaa waxay keenaan dareeno aan fiicnayn and self-destructive behaviors iyo dabeecado nafta burburinaya. People's ways of thinking, qaabka ay dadku u fikiraan about events in their life, dhacdooyinka baa noloshooda determines waxay go'aamisaa their emotional and behavioral patterns. qaabka dareenkooda iyo sidoo kale dabeecadooda qaabkay noqonayaan way go'aamisaa. Most of the time our thinking patterns in one way or another way affects our emotional and behavioral well-being. waxaa la yidhi inta ugu badan baa la yidhi qaabkan u fikirraay muxuu ahaa wanaageena dhanka dareen iyo midkeena dabeecadeed ayuu saameyn ku yeeshaa in either positive or negative ways. si taban ama si togan ayuu saameyn u yeeshaa. hence sidaa daraaddeed if there is hadduu jiro baa a disturbance in our thinking waxaa la hakad ku yimaada qaab fikirtaankeena it may manifest oo waxay ka dhigan tahay qaab fikirkeeni oo wax soo dhexgala it may manifest in our display of emotions and behaviors. waxaa laga yaabaa inay kasoo muuqato baa la yidhi dareenadeena iyo dabeecadeena ay kasoo muuqan. qolba waxaad ku fikiraysaa dareenkaaga dabeecadaada ku fikir haddaad gudahaaga ay ka socoto muxuu ahaay dareen murugi waxa ku soo haddaad aad fikir dabeecadaada iyo sidoo kale dareen muujintaada ayay laga akhrisano ay kasoo muuqan. Our environmental and cultural experience in our life play a major role in the formation of our thinking style. sidoo kale waxaa la yidhi khibradeena dhanka dhaqan iyo midda deegaanka ama bii'ada inagu hareeraysan iyaguna sidoo kale door muhiim ayay ka qaataan maxay samaysanka qaab fikirkeena qaabka ruuxa u fikiray. Types of psychological disorders. noocyada ay iska leeyihiin isku dhexyaacada dhanka maskaxda. A psychological disorder is a condition. waxaa la yidhi waa xaalad characterized by abnormal thoughts, feelings and behaviors. lagu yaqaano aragtiyo iyo dareeno iyo dabeecado aan abnormal oo sidii caadigeed ka duwan. Psychopathology is the history of psychological disorders including their symptoms, etiology and treatment. Psychopathology waxaa la yidhahdaa baa la yidhi
barashada ama daraasaynta isku dhexyaacada dhanka maskaxeed oo ay ka mid yihiin symptomskooda calaamadooda in la daraasayo sidoo kale waxyaabaha sababa iyo qaababkii loo daweyn lahaa waxaa jira many types of psychological disorders noocyo kala duwan oo isku dhexyaacada dhanka maskaxda but here in this section we will try to see only types of mood disorder anxiety disorder and personality disorder laakiin waxaan arki doonaa qaybtan waxaan ku arki doonaa saddexda ka koowaad mood disorders are characterized by a series of change in mood from depressive to elevated feelings mood waxaa la yidhahdaa isbebedelka maskaxda ayaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa mood disorderska waxaa lagu yaqaanaa bale series of change in mood isbedel aada oo ku yimaada maxay moodka from depressive to elevated feelings kaasoo udhexeeya isbedelkaasoo udhexeeya baa la yidhi dareen mar ruuxu aada u niyad jabsan murugaysan marra uu aada u faraxsan causing kaasoo sababaya disruption to life activities taasoo ku sababaya baa la yidhi hakad inay hawlihii nolosha shaqooyinkii adigaa ruuxu qabanaya inay hakad ku yimaado depressive disorder is characterized by overall feeling waxaa la yidhi ruux disorderkan ruux murugada iyo waxaa lagu yaqaanaa marka ruuxu aada u niyad jabsan yahay waxaa lagu yaqaanaa overall feelings of desperation and inactivity dareen guud oo ah quusasho iyo quus iyo sidoo kale inactivity muxuu ahaay in wax ruux qaban karin elevated moodskan iyagana waxaa lagu yaqaanaa mania or hypomania hal ruuxu in marra aad aan arki doonaa mania xagga doon arkin the cycling between both depressive and manic moods is characterized by bipolar mood disorder waxaa la yidhi wareegan u dhexeeya labadan ruux marra uu aada faraxsan yahay marra uu aada niyad jabsan yahay waxaa lagu yaqaanaa baa bipolar mood disorder bipolar isagana xagga dambaan ku arki doonaa qayb hoosadyada ay iska leeyihiin mood disorder the disorders in this category waxaa la isku dhexyaacda qaybtan ku jira mood disorder waxaa ka mid ah those were primary symptom is a disturbance in mood kuwaasoo baa la astaanta u horeysa lagu garta ay tahay hakad ku yimaada qaabka maskaxda isbedel ku iman the disorders waxaa ka mid ah qaybtan sii hoostaga waxaa ka mid ah major depression dysthymia bipolar disorder iyo sidoo kale cyclothymia major depression oo sidoo kale loo yaqaano baa depression ama clinical depression baa is characterized by waxaa lagu yaqaanaa depressed mood diminished interest in activities previously enjoyed weight disturbance sleep disturbance loss of energy difficulty concentrating and often includes feelings of hopelessness and thoughts of suicide waxaa la yidhi major depressionka waxaa lagu yaqaanaa ruuxii oo muxuu ahaay murugaysan niyad jabsan sidoo kale hawlihii marka hore inuu qabto jeclaan jiray oo hadda aanu xiiso u hayn weydka ama culayska ruuxa oo khalka ku yimaada hurdada oo khalka ku yimaada sidoo kale ruux tamar bilaa tabar noqday tamartu kala iyo sidoo kale ruuxa oo inuu wax xoog saaro oo aad ugu fiirsado aan awood u lahayn iyo sidoo kale waxaa ka mid ah baa leeyahay dareen ah ruuxu inuu rajabeel iyo sidoo kale aragtiyaha ruux inuu ismiidaaminta oo saalaan dadka qaar ku fikiraan ruux inuu isdilaba dysthymia iyadana is often considered a lesser but more persistent form of depression iyada waxaa loo yaqaanaa bale ama waxaa weeyaan qaab major depressionkii oo yar fudud laakiin persistent oo joogto ah many of the symptoms are similar waxaa la yidhi calaamadaha intooda badan waa la mid ah kuwii major depressionka except laakiin to a lesser degree laakiin heer ahaan way ka hooseeyaan also dysthymia is as opposed to major depression si ka duwan baa la yidhi major depressionka is steadier rather than periods of normal feelings and extreme loss iyadu waxaa la yidhi waa mid joogto ah tan kale laakiin waa maxay waa mar normal extreme lows iyo sidoo kale marra ruux dareen caadi oo dareemay marra dareenkiisu waa low oo aad buu kala niyad jabsan marra waxaa laga yaabaa inuu iska caadi oo ama uu farxsan bipolar disorder iyadana sidoo kale waxaa loo yaqaanaa manic disorder is characterized by waxaa lagu yaqaanaa bali periods of extreme highs la yidhahdo mania xilli uu ruuxu aad saalan u farxsan yahay oo dareenkiisu aad u sarreeyo waxaa la yidhahdaa mania iyo sidoo kale xilliye low yahay sidii major depression oo kale bipolar disorder haddaba laba loo sii kala qaybiya waxaa la yidhahdaa extreme ama hypermanic episodes talabaadna waxaa la yidhahdaa mid dhexdhexaada oo la yidhahdaa hypomanic marka ta dhexdhexaadka waxaa la yidhahdaa hypo kan kalena waxaa la yidhahdaa hypermanic iyo hypomanic bay kala yihiin cyclothymia iyadana waa maxay like dysthymia and major depression sidii dysthymiyada iyo sidoo kale major depressionka oo kale cyclothymia is considered a lesser form of bipolar disorder bipolar disorderki qayb ka mid ah oo iyadii oo ka fudud weeyaan sidii ay dysthymia ahayd major depressionki oo muxuu ahaay ka fudud ayay sidoo kale cyclothymia-guna waxaa weeyaan bipolar disorderki oo heer ahaan ka hooseeya oo ka yar fudud nooca labaad ee disorderska psychological disorders waxaa weeyaan anxiety disorder anxiety is a normal reaction to stress and can be beneficial in some situations anxiety waxaa la yidhahdaa walaac waxaa la yidhahdaa falcelinta caadiga ee ruuxu markuu murugaysan uu bixiyo
and it can be beneficial in some situations. xaaladaha qaar faa'iido bay yeelan kartaa. It can alert us to dangers and help us prepare and pay attention. waxaa la yidhi waxay nagu wargelin kartaa ama heegna gelin kartaa marka xilliyada khataraha kale, waxayna naga caawin baa inaan diyaar garowno sidoo kale waxaan aanan u fiirsan. Anxiety disorders differ from normal feelings. waxay kaga duwan yihiin baa dareenada caadiga ah ee nervousness iyo anxiousness oo waxay keenta ruuxu inuu dareenada caadiga iska murugada caadiga waxay kaga duwan yihiin. way ka duwan yihiin baa and involve excessive fear or anxiety. waxaana ku lug yeeshaan baa maxaa lagu yaqaanaa cabsi xad dhaaf ah. Anxiety disorders are the most common of mental disorders. isku dhaxyada dhanka maskaxda kuwa ugu badan ee dadku dhacweyn and affect waxayna saameeyaan baa nearly 30% of adults at some point in their lives. waxaa la yidhi ku dhawaad 30% dadka qaangaarka ayuu saameeyaa waqti ka mid ah noloshooda. However, like anxiety disorders are treatable and a number of effective treatments are available. waxaa la yidhi disorderska noocan waa kuwa la daweyn karo, sidoo kale qaabo fara badan oo loo daweyn karana way jiraan. Treatment helps people lead normal productive lives. daweyntan waxay ka caawisaa dadku inay nolol wax soo saar ay sii wataan. In general, guud ahaan, for a person to be diagnosed with an anxiety disorder, ruuxa baa la yidhi si looga baaro oo la yidhahdo ruuxaasi anxiety disorder buu qabaa si loo dhaho the fear or anxiety baa cabsida uu ruuxani muujinaya must be out of proportion with the situation or age inappropriate. waxaa la yidhi waa inay tahay mid xaaladda ka baxsan, xaaladda mid aan u dhigmin xaaladda markaa taagan. sidoo kale da-da ruuxan aan ku habboonayn waa inaad waxaa laga wadaa xaaladdan cabsida uu ruuxa ka muujinaya iyo xaaladda waa inay isu dhigmaan. xaalad aan dadka kale in cabsi saa u badan ka muujinayn ruux hadduu ka muujiyo waxaa la odhan waxaan waa cabsida iyo xaaladda ay ka badan tahay waa anxiety disorder. sidoo kale da-da ruuxa iyo cabsida uu ruuxa muujinayaan haddayna isku habboonayn weyn. tusaale ilmaha yar oo aad uga cabsanaya laga yaabaa in dadka weyn ka cabsan. ruux weyn oo laakiin waxay dadka waaweyn aad uga cabsi zaid ayna ka muujinayn hadduu ruux weyn ka muujinayo da-diisa iyo cabsidan isma leh. saa darteed waxaan keenay waxa weeye cabsidan faraha badan waxa keenay waxa la odhan wuxuu qabaa anxiety disorder. sidoo kale waxaa la yidhaha cabsidani waa inay the fear must hinder your ability to function normal. cabsida baa la yidhi waa inay caqabad ku tahay muxuu ahaay awooddii uu ruuxu u lahaa inuu si caadi oo shaqadiisa u wato u shaqeeyo. labadaas shardi haddii la helaa baan ruuxaasi anxiety disorder buu qabaa. The disorders in this category include waxaa la yidhi disorderska qaybtan waxaa ka mid ah panic disorder, agoraphobia, specific phobia, and social phobia, obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder, iyo sidoo kale generalized anxiety disorder. mid aan arkayna mid koobaad haddaba panic disorder waxaa la yidhaha is characterized by a series of panic attacks. waxaa lagu yaqaanaa baa la yidhi weeraro cabsi oo fara badan taxanaa. A panic attack is an inappropriate intense feeling of fear. waxaa la yidhahdaa waa cabsi aad u daran oo muxuu ahaaye dareen cabsi oo aad u daran oo discomfort including ama ruuxu inuu raaxa la-aan dareemo including many of the following symptoms oo leh qaybo badan oo ka mid ah calaamadahan. tusaale waxaa lagu yaqaanaa heart palpitation, garaac wadno oo sidii hore ka duwan, trembling, gariir, shortness of breath, ruuxa neefta oo yaraata oo neef tuurka ruuxa oo yaraada, chest pain, laabta oo ruux xanuunta, dizziness, daal, waxyaabahaas lagu yaqaana. Agoraphobia iyadana waxaa la yidhi literal means fear of the markets. macnaheedu waxay ka dhigan tahay baa la yidhi cabsashada goobaha muxuu ahaaye suuqyada iyo goobaha suuqyada. It refers to the series of symptoms where the person fears. waxay ka dhigan tahay baa la yidhi waa astaamo marka ruux ka cabsada and often avoid situations where escape or help may not be available. inta badan ruuxu uu ka fogaado baa la yidhi xaaladaha ayna jirin baa la yidhi caawimaad ama meel u baxsan ayna jirin ruux marka ka fogaado. sida tusaalahaan oo kale shopping center, goobaha laga tukaamaysto, grocery stores, bakhaarada baa la yidhi muxuu ahaa cuntooyinka iyo agabka waxyaabaha adeegyada wax laga iibsado or other public place ama goobaha kale dadweyne. ruux hadduu ka fogaado ka cabsado ruuxa disorderka noocaas agoraphobia. Agoraphobia is often a part of panic disorder. badanaa waxaa la yidhi waa qayb ka mid ah panic disorder. If haddii the panic attacks are severe enough to result in the avoidance of these types of places. haddii baa la yidhi panic attackska ruux weerar dhanka cabsidii ay ku sababayaan ruuxan inuu meelahan ka fogaado qayb ka mid ah panic disorderka weeyaan baan odhanaynaa. Specific or simple phobia and social phobia. tanna waxaa la yidhi an intense phobia macnaheedu waxay ka dhigan tahay waa nicitaan baa la yidhi phobia represent an intense fear and often an avoidance of specific situation. waxaa la yidhi inta badan waxay ku lug yeelataa cabsi xad dhaaf ah iyo inuu ruuxa xaalado gaara ama shakhsi gaara ama goob gaara ama shay gaara uu ka fogaado. Obsessive compulsive disorder is characterized by obsessions. noocan waxaa la yidhahdaa waa waswaaska qasabka ah baa la yidhahdaa. waxaa la yidhahdaa is characterized by obsessions. waxaa lagu yaqaanaa baa la yidhi waswaas macnaheedu thoughts which seem uncontrollable. aragtiyo uu ruuxu una xakameyn karin. Under compulsion waa waxyaaba ku qasbaya ruuxu tallaabo inuu qaado. Behaviors which act to reduce the obsession. waxaa la yidhahdaa dabeecado kuwaasoo ruux sameeya baa la yidhi waxyaabaha ruux sameeya si uu waswaaska waxa uu yareeyo.
Most people think of compulsive hand washers or people with an intense fear of death or of being infected. Dadku inta badan waxay u maleeyaan baa dadka gacmaha xilli kasta maydh tusaalaan gacmaha inay meedhaan xilli kasta isku qasbaan. Dadkaas inay cabsi saayida oo ay ka qabaan inay wasakh iyo ama inuu cudur qaadeen ay ka cabsanayaan. Marka obsessive compulsive disorder-ka noocan waxaa la yiraahdaa maxay? Ruuxi waswaaska caadiga ruux hadduu wuxuu arko tusaalaan meeshan waxaad aragtay wax wasakh inay ku daadatay hadad ka waswaxto oo wax iska caadi laakiin waswaas dadka kale aan haynin oo markasta ruux uu cabsi ah inuu waxan meeshan nadiif ma aha waxa uu ka cabsi la yiraahdaa waswaas qasabka la yiraahdaa obsessive compulsive disorder. noocan kalena waxaa la yiraahdaa ama qaybtan kale ku xigta waxaa weeyaan post traumatic stress disorder. Trauma waxaa la yiraahdaa waxyaabahan musiibooyin waxyaabahaas la yiraahdaa postina waa kadib occurs waxay dhacdaa only after a person is exposed. kadib marka ruuxu baa la yiri u hawo ruux salaan oo kale u arko to a traumatic event dhacdo musiibo where their life taasoo baa la yiri muxuu ahay noloshooda or someone else's life ama ruux kale noloshiisa is threatened ay khatar gashay. The most common example is tusaalayaasha ugu fiican ee disorderka noocan ee xilliyada yimaado waxaa ka mid ah war dagaalka natural disasters musiibooyinka dabiiciga major accidents shilalka waaweyn iyo sidoo kale and severe child abuse iyo sidoo kale haddaad aragto ilmo yar oo si aad loogu xadgudbay. Generalized anxiety disorder is diagnosed when a person has extreme anxiety. waxaa la yidhi noocan ruux laga helaa ama laga baaraa oo ruuxu la yidhahda uu qabaa marka uu ruuxu qabo baa la yidhi cabsi muxuu xad dhaaf uu ka qabo ama in nearly every part of their life dhinac kastoo noloshooda ka mid ah cabsi guud buu qabaa. It's not associated with church open maaha baa mid la xidhiidha goobaha dadweynaha sidii agoraphobia oo kale maaha mid xaalado gaar ah la xidhiidha sidii specific phobia oo kale mid la xidhiidha baa la yidhi dhibaatooyinka muxuu ahaa musiibooyinka mid la xidhiidha maaha waa mid guud. The anxiety must be significant enough to disrupt the person's everyday life for a diagnosis to be made. waxaa la yidhi murugadani ama waxaan jira cabsidani waa inay tahay baa la yidhi mid ruuxan muxuu noloshiisa maalinlaha hagad gelin kara si aan u dhahno ruuxa ama si looga baadho ama loo yidhahdo ruuxaasi wuxuu qabaa maxay generalized anxiety disorder. saddexaad waxaa la yidhahdaa personality disorders. A personality disorder is a type of mental disorder. waa nooc ka mid ah isku dhexyaaca dhanka maskaxdaada in which case you have a rigid and unhealthy pattern of thinking. ruux wuxuu leeyahay baa la yidhi qaab fikritaan joogta ah oon caafimaad qabin functioning and behavior iyo sidoo kale qaab shaqayn iyo qaab ruux iyo dhaqmitaan aan muxuu ahaay joogta ah. A person with personality disorder wuxuu leeyahay trouble perceiving and relating to situations and people. wuxuu dhibaato ruuxaas ka haysata baa la yidhi inuu fahmo sidoo kale uu isla xiriiriyo xaaladaha iyo dadka sababtaas qaab fikiritaankiisu waxaa la yidhi waa rigid oo maaha mid isbedelaya. This is the personality disorders are characterized by waxaa dabeecado lagu yaqaana an enduring pattern of thinking feeling and behaving. waxaa la yidhi waxaa dabeecado lagu yaqaana qaab fikiritaan joogta ah feeling iyo dareen joogta ah and sidoo kale behaving iyo sidoo kale qaab dhaqmitaan joogta ah which is significantly different from the person's culture and results in negative consequences. kaasoo si weyn uga duwan baa la yidhi dhaqanka ruuxa sidoo kale negative consequences na keena ama cawaaqib natiijooyin aan fiicnayn keena. This pattern must be long standing and inflexible for a diagnosis to be made. waxaa la yidhi patterningan ama qaabkan ruuxu u fikiraya waa inuu noqdo baa la yidhi mid waqti dheer ku socda and sidoo kale mid aan isbedelaynin waa inuu yahay for a diagnosis to be made si loo yidhahdo ruuxaasi wuxuu qabaa personality disorderka noocaas uu qabaa si loo yidhahdo waa inuu labadaas sharti la helo waa inuu mid long standing oo waqti dheer socda yahay sidoo kale mid inflexible oo isbedelaynin waa inuu yahay si ruuxa looga baadho ama loo yidhahdo disorderkaas qaba. There are hadaba around waxaa jira 9 types of personality disorders qiyaas ahaantii ilaa 9 nooc oo personality disorderska loo yaqaan all of which result in a significant distress and or negative consequences within the individual. dhammaantoodna baa la yidhi waxyaaba cawaaqib ama natiijooyin aan fiicnayn iyo sidoo kale waxay keenaan baa la yidhi walaac iyo shakhsiga u keenaan dhammaantood. 9kii hadda waa kuwan. ka koowaad paranoid waxaa la yidhi waa nooc aaminaad darro ah distrust and suspiciousness waa nooc baa la yidhi aaminaad darro iyo shaki. Schizoid waxaa la yidhahdaa waa detachment from social norms ruux baa la yidhi inuu ka go'o caadooyinka bulshada and restriction of emotions iyo sidoo kale dareenadiisa iyo dareen muujintiisu inay xadidan tahay ruuxa. Schizotypal waxaa la yidhahdaa iyadana a pattern of discomfort in close relations and eccentric thoughts and behaviors. waxaa la yidhi waa nooc ruux una jeclayn xiriirada dhow dadka xiriir dhow la yeesho oo ay dadka isdhexgalaan iyo sidoo kale aragtiyaha qariibkee uuna arag waxyaabahan hore iyo dabeecadan hore oo dhan ruux kuma ma jeclo. Antisocial waa nooc baa la yidhi
disregard for the rights of others ruux baa ma tixgelinayo muhiimad ma siiyo xuquuqaha dad kale waxaana ka mid ah violation of rights and the failure to feel empathy waxaa la yidhi in xuquuqaha dad kale ku xadgudbo iyo sidoo kale ruuxaas baa la yidhi ma dareemo muxuu ahaay waxa loo yaqaano muxuu ahaay empathy waxa loo yaqaano ma dareemo oo dadka kale dareenkooda iyo ma fahmo ma wax naxariis muujina ma sameeyo borderline pattern of instability in personal relationships including frequent bouts clinginess and affection and anger and resentment waxaa la yidhi noocan waxaa loo yaqaanaa baa la yidhi degenaansho la-aan shakhsiyadeed dadka xidhiirka uu leeyahay tusaalahaan waxaa ka mid ah baa la yidhi frequent bouts of clinginess waqtiyo baa la yidhi oo ruuxa isku dhadhajinayo oo aad ula saaxiibay and affection oo jacayl iyo u muujinayo and anger and resentment iyo sidoo kale waqti cadhay iyo waxaa ku xigta baa la yidhi xanaaq ruux marra waa xanaaqsan yahay marra ruux fiican oo caadi oo si fiican dadka ula dhaqmay often cycling between these two extremes rapidly ruuxna wuxuu dhexeeyaa baa la yidhi labadan shay ee aad u kala fog ayuu ruuxu u dhexeeyaa kolba mid uu isbedelayaa waqti yar gudihii histrionic waxaa la yidhi noocan waa excessive emotional behavior and attention seeking waa nooc baa la yidhi dareen muujin xad dhaaf ah iyo sidoo kale ruuxu inuu in attentionka lasoo fiiriyo uu aad u raadiyo narcissistic waxaa la yidhaha a pattern of grandiosity waa nooc baa la yidhi isla weynaa exaggerated self worth and a need for domination iyo ruux sidoo kale baa la yidhi isbombooniya inta badanna jecel in muxuu ahaaye in loo khushuuco ama loo riyaaqo avoidant waxaa la yidhi waa nooc feelings of social inadequacy low self esteem and hypersensitivity to criticism waa nooc baa la yidhi ruuxan inuu soo arkay inuu bulshada ku habbooneyn sidoo kale naftiisa ixtiraamka u hayay iyo uu aad isula hooseeyo sidoo kale xasaasiyad ka qabo baa la yidhi maxay dhaleecaynta oo haddii la dhaleecayo muxuu ahaaye xasaasiyad ka qabo in la dhaleecayo u arka muxuu ahaaye wax u arka muxuu ahaaye arrinta dhaawacaysa obsessive compulsive waa tii aan soo aragnay waxaa weeye obsessive cleanness perfection and control ruux baa la inuu ruux markasta isku qasban baa la inuu nadiif ahaado ruux dhammaystiran oo sax waxyaabahaas la yidhahda obsessive compulsive waa nooc waswaas ka mid treatment techniques qaababka haddaba loo daweeyo psychological disorders treatment of mental illness can take various forms qaabab kala duwan bay qaadan kartaa baa they can include waxaa ka mid ah baa ama waxaa ka mid noqon kara medication daweyn caadi ruux in la siiyo talk therapy in daweyn dhanka afka ruuxa lagu daweeyo a combination of iyo in labadaba ruuxa la isugu daro and can last only one session hal kulan kaliya ay socon kartaa baa or take many years to complete ama sanaday qaadan kartaa si ay daweyntu u dhammaystiran many different types of treatments are available noocyo kala duwan oo daweyn ayaa jira but most agree that core components of psychology of psychotherapy remain the same laakiin inta badan dadku waxaa la isku raacsan yahay baa waxyaaba muhiimka ee psychotherapy inay isku mid yihiin psychotherapy consists of wuxuu ka kooban yahay the following kuwan soo socda tusaale a positive health relationship between a client or patient and a trained psychotherapist waxaa la yidhi xidhiidh muxuu ahaaye togan oo u dhexeeya muxuu ahaaye macmiilka ama bukaanka laga wadaa iyo sidoo kale psychotherapist tababaran sidoo kale recognizable mental health issues with a diagnosable organ waxaa la yidhi arrimo dhanka ama la xidhiidha caafimaadka maskaxda oo la garan karo kuwaas oo abal kuwa ruuxa laga baari karo mise aan laga baarin agreement on the basic goals of treatment in la isku raaco baa la isku waafaqo hadaafta muxuu ahaaye asaasiga ee daweynta working together iyo sidoo kale in si wada jir loo shaqeeyo asatiin kooxaan in loo shaqeeyo to achieve these goals si hadaafta loo gaadho treatment approaches qaababka ama wadooyinka loo maro daweynta providing psychological treatment to individuals with some kind of psychological problem is psychotherapy sidaba la yidhi muxuu ahaay daweyn dhanka psychologiyeed la siiyo dadka qaba nooc muxuu ahaay dhibaato maskaxeeda ayaa la yidhahdaa psychotherapy when providing psychotherapy marka la siinayo baa la yidhi there are waxaa jira several issues arrimo badan oo ay tahay to be considered in lagu xisaabtamo first and foremost is empathy waxaa la yidhi midda ugu horeysa waxaa weeyaan empathy waxaa la yidhahdo ruuxu inuu fahmi karo xaaladda iyo dareenada ruuxan kale ee uu daweynayo it is a requirement for a successful practitioner to be able to understand his or her client's feelings waxaa la yidhi waa laga maarmaan bay u tahay ma waxa koowaad looga baahan yahay ruuxan shaqada qabanaya in uu fahmo muxuu ahaaye dareenka macmiilkiisa oo ah ruuxa uu daweynayo sidoo kale aragtiyaha iyo dabeecadiisa second midda labaadna waxaa weeyaan being non-judgmental vital if the relationship and the treatment are going to work waxaa la yidhi ruuxu inuu noqdo ruuxa wax ku xukminayn waxay muhiim u tahay xiriirka iyo sidoo kale daweyntani waa inay shaqeynayaan oo non-judgmental waxaa laga wadaa tusaale ruuxii inaad wax ku go-aamin oo tiraahdo ooda odhan muxuu ahaa dhibaatada dhanka maskaxda noocaas waxay kugu dhacday waa waxa ama dadka nooca dhibaatooyinka maskaxda waxyaabaha noocaas ay sameeyaan marka waa inaad wax ku xukmin aside from these commonalities marka laga soo tago waxyaabahan ay ka siban yihiin therapists approach clients from slightly different angles
therapists ama dadkan daweeya cudurrada dhanka maskaxda waxaa la yidhi macaamiishooda ama bukaanada ay daweynayaan dhinacyo kala duwan bay ka eegaan although inkastoo the ultimate goal remains the same hadafka ugu dambeeya uu yahay isku mid oo ah to help the client reduce negative symptoms gain insight into why these symptoms occurred and work through those issues and reduce the emergence of the symptoms in the future hadafkaas oo ah baa la yidhi in laga caawiyo baa la yidhi macmiilkan ama muxuu ahaa bukaanku inuu yareeyo baa la yidhi astaamahan ama calaamadahan muxuu ahaaye taban sidoo kale inuu faham ka helo baa la yidhi sababaha ay waxaan ku yimaadeen iyo sidoo kale in arrimahan uu ka shaqeeyo si uu u yareeyo ama inuu yareeyo inay muxuu ahay dib symptomskan ama cudurradan ama calaamadahan inay mar labaad dib ruuxa ugu soo noqdaan mustaqbalka The three main branches include saddexda laamood ugu waaweyn ama saddex dhinac ugu waaweyn ee ka eegaan muxuu ahaaye therapists waxay kala yihiin cognitive behavioral iyo dynamic cognitive waxay ka dhigan tahay qaybta cognitive-ka dhanka fahamka ama ka eg tahay waxay eegayaan in cudurradan ay sababeen tusaale ahaan ruux oo si khaldan u fikray ama qaab fikiritaanka ruux laga yaabaa inay psychological disorder ka sababeen dhinacaas ay kuwan ka fiireen behavioralna dabeecadahan barano ayaa laga yaabaa qaarkood inay sababeen muxuu ahaa psychological disorder dhanka dabeecadda ka fiirinaya dynamicna waxay ka fiirinayaan kuwan aragtidan qaybtan dadka dhinacan ka fiiriya markay ruuxa daweynayaan waxay eegaan waxyaabaha ruuxan psychological disorder ku sababay inay yihiin waxyaabo hore oo laga soo bilaabay ilaa ciyaalnimadiisii waxyaabo noocaas oo ruuxa maskaxdiisa qaybta unconsciouska ku jiray oo laga yaabo inay ruuxa saameyn ku yeeshaan muxuu ahaye maskaxdiisa caafimaad dhinacyadaas ay ka fiirinayaan kuwan treatment modalities qaababka wax loo daweeyo therapy is most often thought of as a one-on-one relationship between a client or patient and a therapist inta badan baa layidhi muxuu ahaaye therapyga waxaa loo maleeyaa inuu yahay xidhiidh u dhexeeya labo mid iyo xidhiidh u dhexeeya baa layidhi hal shakhsi iyo hal shakhsi oo kale oo ah macmiilka ama bukaanka iyo sidoo kale ruuxii daweynaya this is probably the most common example tani waa tusaalaha inta badan ugu caansan oo badanaa inta badan waa ruuxan cudurka maskaxeed qaba iyo ruuxa daweynaya but laakiin therapy can also take different forms qaabab kala duwan soo kala qaadan karaa ama noqon karaa oftentimes group therapy is utilized in marar badan baa yidhi koox in ahaan dadka loo daweeyo la adeegsadaa where individual is suffering from similar illness or having similar issues meet together waxaa kulma baa layidhi markaas ay kulmaan dad isku mid ah ama dad dhibaato isku mid ah la dhibaataynaya ama xanuun isku mid ah hayo yaa si wada jir oo kulma baa waxayna ula kulmaan with one or two therapists hal ama laba therapist ayay la kulmaan kadibna si kooxa buu u daaweynaya group size differ size-ka ama xajmiga inta uu leeyahay group kooxdu way kala duwanaan kartaa waxaa laga yaabaa inuu 3 noqdo ama 4 ilaa 15 ama 20 meelaha inuu gaaro but the goal remains the same laakiin hadafku waa isku mid ama goals ahdaafta laga leeyahay waa isku mid therapy can also take place in smaller groups therapy sidoo kale daweynta dhanka maskaxda koox yar sidoo kale waa loo sameyn karaa oo ka kooban baa layidhi lamaane ama qoys tusaalahan in this type of treatment daweynta noocan ee small groupska the issue is to be worked on are centered around the relationship shayaasha ama xajada ama waxa laga hadli doona ama dadka laga daweynaya issue waxuu la xiriiraa baa layidhi xiriirka dadka ka dhaxeeya iyagoo ku xidhan ama waa arrimo qoys ama waa arrimo lamaane ka dhaxeeya sometimes marka qaarkood therapy can include therapy waxaa ku jiri kara more than one treatment modality in ka badan hal qaab ayaa ruuxa loo daweyn karaa ruux waxaa laga yaabaa si keliya in keligii loo daweeyo haddana koox lagu dhex daro kooxdan lagu muxuu ahaaye labada qaab loo daweeyo halkaas hadda waxay nooga cutubkii 7. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu